فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. haweeney lacag lahayd oo taajirada ahayd baabuurkayga iska wadatay dariiq bay marays waa waqti maqriba maqribkaa soo dhow dariiqii ay socotay baabuurkii baa ka kharaabo ka joogsaday baabuur baa soo maray uu dhaafay xoog buu ku dhaaf baabuur kale ayaa soo maray uu dhaafay xoog buu ku dhaaf iyada oo yaaban oo roobkii uu soo tiitiixayo ayaa waxaa soo joogsaday baabuur aada u liita aada u fool xun ayaa soo joogsaday ninka wada daal baa ka muuqda waa nin soo rafaaday way shakido waxaa istiri baabuurkan maad kortaa mise waad ka joogsataa mise waad kortaa akhiiran go-aan waxay ku gaadhay inay iska raacdo way fuushay laakiin waxay aragtay nin edeb badan inuu yahay nin ixtiraam badan inuu yahay markii haweenaydii soo fuushay muu eegin wejigiisuu foorariyey baabuurkiisuu iska wati waxa uu ku yidhi xaggeed rabtaa waxay tiri magaalada i gaarsii waa yahay buu yidhi meel maqaaxiya markay soo dhowaatay bay tiri xaggan ii joogso waxay doonaysay lacag fiican inay siiso wuxuu ku yidhi may iska hayso lacagtaada allah kuu barakeeyo waxay tiri may inaan ku siiyo oon kuu gargaaro ayaan doonayaa may buu yidhi ilaahay dartii baan kuugu gargaaray dhibaato iyo madowgaa kaagama tegan iyo cidladaas inaan cidladaa kaaga tago oon ku dayaco ayaan diidayey sidaa awgeed lacagtaada iska hayso allah ku barakeeyo waxay ku tiri may waa inaan ku siiyo waxa uu ku yidhi ma wanaag baad doonaysaa inaad ii samaysidoo lacag i siisid haa bay tiri waxa uu ku yidhi dadka dhibaataysan u gargaar wixii qof dhibaataysan ee kaa hor yimaada u gargaar ilaahay adigana uu kuu gargaariyey wassalaamu calaykum buu ku yidhi uu iska dhaqaaqay haweenaydii runtii ninkanay la yaabanayd waxay gashay maqaaxidii ayay gashay way fadhiisatay qabow baa jira roob baa isa soo haysta dhulkuu soo madoobaaday magaaladan aada uma kala taqaano xaggii bay doontay inay sharaab yar ka cabto shaah yar ka cabto kadibna ay meel raadsato oo iska seexato haweeney baa u timid waxay ku tiri maxaad rabtaa waan kuu keenaa waa u sheegatay dalabkeygii wixii ay cuni lahayd iyo wixii ay cabbi lahayd ayaa u sheegatay haweenaydii ayaa u fiirsato waxay ku tiri waa daalan tahay maxaa ku helay gabadhii shaqaynaysay ayay ku leedahay maxaa ku helay gabadh yahay gabadh daalan baad u eeg tahee waxay tiri uur baan leeyahay waxay ku tiri de miyaad iska nasatid miyaad aqalkaaga joogtid maxaad u daalaysaa maxaad u rafaadaysaa maxaad isku kadeedaysaa waxay tiri waxaanan helayn ilmahaa yar wixii aan ku dhali lahaa iyo wixii dhar aan ugu iibin lahaa iyo wixii aan ku soo dhoweyn lahaa ayaanan haysan sidaa awgeed waa inaan shaqaysto inta aanan dhalin waayahay bay tiri haweenaydii cuntadii bay iska cuntay sharaabkii bay iska cabtay kadibna warqaddii markii loo keenay ayay lacag ziyaada ay ugu dartay ay ku tiri orod oo soo bixi markii ay sarifka soo qaadaysay ay baaqiga u soo celi tiri haweenaydii way ka kacday meeshii warqadna way u dhigtay waxay ugu qortay baaqiga adiga iska leh miiska hoostiisana lacag baan kuu dhigay waxaan doonayaa inaad ii ducaysid lacagtaana waa lacagtii ilmaha yar aad ku dhali lahayd ku soo dhoweyn lahayd dhar ugu iibin lahayd wuxuu u baahan yahay oo dhan ayaan meeshaa kuu dhigay lacagtu
haweenaydan mishaharka ay qaadato waa 6 goor oo la laalaabay weeyaan. yacni 6 bilood bay mishaharkeygii siisay oo u qadintay. allahu akbar. haweenaydii way faraxday, isla waktigiiba way oroday. ninkii mas-uulka ahaa bay u tagtay, waxay ku tiri ma shaqayn karayo, ifasax isii. sidii ayuu fasax ku siiyey, iyadoo intii baaqigii iyo lacagtii haysata ay haweenaydu ay siisay ayay la oroday. aqalkeygii bay tagtay iyadoo oo faraxsan oo bishaaraysanaysa. albaabkii bay gargaraacday, odaygeygii baa ka furay. waxa uu ku yidhi maxaa ku helay? wakhtigii waa ka soo horaysee ma dhalmadii baa timid? may bay tiri, ilaahay faraj buu ina siiyey, lacag aan ilmaha ku soo dhoweyno oo wax ku iibsanno ayuu ilaahay ina siiyey. aadamow, haweenay barakaysan ayaa lacagtaa isiisay. aadan ma garateen? aadan waa kii tagsiilaha ahaa. aadan waa kii u dardaarmay haweenaydeen ee ku yidhi qofkii dhibaataysan u kaalmee. haweenaydii wanaaggii uu u qabtay, waxaa islaantiisii ayuu wanaaggii haleelay. khayrkii xagganu ka soo baxay. khayrku marna ma dayacmayo, ilaahay kuma hoojinayo. ilaahay waa wanaag iyo khayr ayuu kula doonayaa.